السلام عليكم waxaan halkan in kugu soo gudbin doonaa 15 ciqaabood oo sugayso qofka salaada ka tago nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofka ka taga salaada waxa uu leeyahay 15 ciqaabood waxayna kala yihiin sidan soo socota 6 ciqaabood nolosha ayuu ku mutaystaa 3 marka uu dhinto 3 marka qabriga la geliyo 3na maalinta qiyaamaha 6da nolosha 1 noloshiisu waa mid nasiib xun 2 ducadiisu aqbal ma aha oo carshiga alle ma gaarto 3 wajigiisu waa laga tiraa astaanta dadka fiican murugo iyo shida ayuuna daris leeyahay inta uu nool yahay 4 waxa lagu ciqaabayaa wax kasta uu ilaahay abuuray 5 أجر في عن وسميستو ملهن لح ملغو دارو دعاء دادك في عن سدح عقابات مركا ودينتو وحو دينتا إساقو عيبوبي كانش لاينا يمالميه حمانتا كغتك يدونكا لابو وحو دينتا إساقو باهييسان سدح وحو دينتا إساقو أون هايو هدي او بيها بدها أودن عبو أونكا كبئي مايو سدح عقابات اي غبرقا كو الله وحو اسكو عريريا فيريسا إلا أي مدبمت ككرمرتو لابو waxaa lagu shidayaa korkiisa dab aan wax lagu mathaalo lahayn 3 waxa uu Allah u soo dirayaa masas qaniina oo la yiraahdo geesi kaas oo qaniina subaxii ilaa duhurka ka tagida salaada subax awgeed duhur ilaa casr ka tagida salaada duhur awgeed sidaas oo kale ay salaad walba u socon doontaa markii uu hal mar qaniino waxa uu qofka dhulka hoos u galayaa 70 yaardis subhanallah saddexda maalinta qiyaamaha kow Allah waxa uu soo dirayaa qof garaaco oo cadaabta u jeeda wajigiisa 2 Allah wuxuu ku fardhiyaa caro oo wajigiisa ayaa hilibka ka dhaca carada rabbigiisa darteed 3 Allah wuxuu ku xukumaa xukun adag oo waxa lagu tuuraa cadaabta kuwa aan salaada subax tukan nuurka wajigooda waa laga qaadaa duhur ajarka fiican ee lacagtooda waa laga qaadaa casr xoog jirkooda waa laga qaadaa maghrib ciyaalkooda ma aflaxaan cishe nabad jiifka waa laga qaadaa haddii uu ku soo gaaro codkayga Allah ha ku naxariisto adduun iyo aakhiro gaarsii dadka walaalahaga ah ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah ka siiye walaal kuna boori dadka salaada inay tugtaan